السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا Soomaaliyeed meel walba waa daafaha caalamka ka joogtaan waa walaakiin fuad qabyaladeed waxaan jeclahay walaalayaal hadduu ay buweyne idmo inaan idinla wadaago waxyeelada qabyaalada si aynu u garowsano waxyeelada ay qabyaaladu leedahay iminka waxaa iga dambeeya walaalayaal oo aad arki kartaan sawirkan xuquuqdiisa waxaa iskale refugee plus waana xerada Dadaab haddaba sawirka inoo muuqda waxaa arki kartaan hooyo iyo caruurteeda hooyada iyo caruurteeda inooga muuqda sawirka iga dambeeya waa hooyo Soomaaliyeed oo ay soo qaxisay qabyaalad oo wadankeeda uga soo qaxday amni darro shaqo la'aan biyo la'aan waxbarasho la'aan dil ay suurtagal tahay inuu walaal kaloo Soomaaliyeed ku dili lahaa qabiilka ay tahay aawadeed tan waxay ku dhacday malaayiin Soomaaliyeed oo wadankeena uga qaxay cadaalad darro haddaba hooyadan Soomaaliyeed waa hooyo u soo taagneed ay raahdeen dowladnimadii Soomaaliya laakiin maxaynu diiradda saareynaa waxyeelada ay qabyaaladu u geysatay eeg walaal hooyada halka ay fadhiso eeg guriga ay ku nooshahay nooca uu eg yahay bal si wanaagsan waxaad u eegtaa walaal gurigan hooyada Soomaaliyeed ku nooshahay eeg saddexda caruura cunugta ciidii bacaadkeeda iyo laabta dhigatay cunuga yare kale wuxuu iska ciyaarayaa bugle inaad soo ciyaartay waa suurtagal laakiin meeshay ku nool yihiin eeg fariinteedu si gaar waxay ugu socotaa dhalinyarada Ilaahay u nimceeyay ee guriga diiran ee saddexda waqti wax laga cuno ku nool gaar ahaan kuwa qurbaha jooga ee cadaalad darrada ka soo tahriibay laakiin wixii cadaalad darrada sababaya qabyaalada ahaa la soo tahriibay ee wadankooda ka burburinaya social media qabiilada isku faanaya eeg haddii qabiil la sheegto uu faan leeyahay oo wax tarayo eeg buushka ay ku nooshahay maanta hooyadan Soomaaliyeed gurigan cooshada eeg ee roobka ka celinayna eeg rajo la'aanta ay dhulka la fadhiso waxaa sabab u ah qabyaalad waxaa suurtagal walaal adigu inaad dambi ku lahayn laakiin dambi maanta ha ku yeelanin oo social media qabyaalad ha ka faafinin aamin inaad tahay Soomaali u ogolow rajo hooyadan iyo ubadkeeda caruurtan yaryar ee Soomaaliyeed u ogolow rajo ay dalkooda ugu noqdaan u ogolow nabad hadduu qabiil wax tarayo gurigaas cooshada ka samaysan roobka ka celinaynin kumay noolaadeen sababtoo waxaa jira kumaan kun oo Soomaali ah oo ku qabiila oo taajiriina oo caawa guryo qurux badan oo roob u soo galaynin aysan ku qadeenin ku nool fadlan walaal qalbigaaga ka suulay qabyaalada oo ka tanaasul maanta waxaan rajaynayaa fariintaas inaad wada qaadan doontaan duu ay buwaneed fadlan hadaa fariintan ka heshay la wadaag walaalaha Soomaaliyeed ee aan weli garowsan waxyeelada ay qabyaaladu leedahay ولكن فوق قبيلة دي دو دلة دوكسي ملا قبيلة دي واحد مسمو يعني ما سندين